iyadoo shacabka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay la daalaa dhacayaan dhibaatada fatahaada webiga Shabeelle uu ka sameeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa gudoomiyay hore ee gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha xisbiga awoodda shacabka mudane Taabid Cabdi Maxamed waxa uu dalbaday in si degdeg ah loo caawiyo dadka masaakiinta ee dhibaataysan maadaama aanay wax gurmadaha ka helin dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle gudoomiye Taabid oo si qiiro leh uga hadlayay dhibaatada haysata shacabka ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan Beledweyne ayaa sheegay in cid walba looga baahan yahay caawinta dadka masaakiinta ee dhibaataysan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan rabaa inaan dadkayga la wadaago dareen jira waana xaaladda bini'aadanimo iyo musiibada rabbaaniga ah ee ka jirta Hiiraan gaar ahaan Beledweyne. Xaqiiqdii xaaladda fatahaada waa mid inoo wada baahan oo aan la dheeraysan karin. Ku dhawaad 100,000 oo leh caruur, waayeel, hooyo iyo aabba ayaa guryahoodii ka barakacay. gurmad ayaana waajib nagu ah waliba sida ugu dhaqsiyaha badan. walaalayaal, si muslimnimo leh, Soomaalinimo leh iyo bini'aadanimo leh waa inaan ugu wada gurmanaa walaalaheena Beledweyne hadda ay ka gaaris leedahay. qof kasta oo naga mid ah haddii aad haysatid hooy, caawa hooyo caruur baa hooy la'aan ah. haddii aad cunno haysatid, qoys iyo caruur baa gaajo la hooyanaya. haddii aad meel dugaal ah haysatid, hooyo caruur baa qawowga iyo dhaxanta kaliyeysatay. ee dadkayga waan isku wada gurmano. alla faraj uu inoo bixinayaa marka aan khayrka u wada dhaqaaqno. waxaa hubaal ah in qof waliba oo naga mid ah, mas-uul iyo mid shacab ah, ee bahortiisa lagu weydiin doono dayacadda uu dayacay mas-uuliyadda bini'aadanimo, muslimnimo, Soomaalinimo, ehel iyo qaraabinimo ee kaga aadan xaaladda Beledweyne ka taagan. sidaa darteed waxaan leeyahay qof walba iyo gacan waliba ha gurmato inta ay karto. waxaan nahay ummad hal jir ah. gudoomiye Taabid ayaa noqday mas'uulkii ugu horeeyay si qiiro leh uga hadla dhibaatada haysata shacabka ku nool magaalada Beledweyne waxaana ay taasi ka turjumaysaa magaca xisbiga iyo sida mar walba gudoomiye Taabid uu garab taagan yahay dadka masaakiinta ee dhibaataysan.